shirkaasi markiiba Puntland yaa u aragtay duulaan iyada lagu soo yahay ciidamada soo dirtay taliyaha milishiibiyada gobolka Sanaag nin ugu magacaaba milishiibiyo hubaysan mid arto technical wadata milishiibiyadu maxay qabataa marka wala wataan waxa la ma waxay wataan si kaawayaal bay wataan soo qori ma marka waa ha bahalada waaweyn ninkii yaani taliyihii ciidanka milishiibiyada ama canshuuraha oo la yiraahdo Colonel Intinle waxa hadda ku wada sugan magaalada la yiraahdo Ceelbo saddex nin oo ilma adeera oo maxaan ku yahay Xuseen Dheere iyo Intinle iyo Cabdirashiid Cawl oo saddexduba hubaysan shirki markii uu Xuseen Dheere tagay ciidamo la yiraahdo Maakhir ayaa iyaguna xoojiyay Cabdirashiid waa afar ciidan beel baa shiraysa Soomaaliya shirka beeshan beeshu ma u leedahay xaq inay shirto iyo inayna shirin horta xaq ma u leedahay maxaa loogu diiday marka waxa loogu diiday yahay siyaasad baa meesha ku jirta Cabdirashiid yaa wada marka Cabdirashiid kuwan kale wuxuu ku daaban yahay xamar buu ku daaban dabcan أنا هذا ما حد يجيني لكن هبدأ سياسة مركز لفيريو هو ماشي كراس بلدونا يا ما لينا يسا وما آمن يسا إن مجال بوق يمكن أنت وكتاجين يا قرك أسرًا إن دي كداتو إن درها الله وقبت امتحان كسومالي لا جمال وسياسي دائر وسياسي يعني ما أنت مركز لجها الله قبل كاس سياسيين تقوم وقدر ugu macnaha badan yu kookay yahay isaga iyo hogaanka Puntland horay isu jeedeen Soomaaliya garaa oo yaani loolan adag oo dhinacyo badan leh ya ka soo dhaxeeyay dabcan aragtidiisa marka laga duulayo waa fursad dawladda federaalku iyada waxan aaba u ah marka ma wanaag ba ka tamise waxba dambe kala ma wanaag ba kama shaqeysan ma dawladda seen uga shaqeynaa waligeed kama shaqeynaa dawladda federaalku habeenna wanaag kama shaqeyn dadka Soomaaliland male Puntland male waa laba beelood Soomaaliland iyo Puntland oo yaani beel kala isku haysta ama beel kala doonaya inay tunka kuwa mid walba dhinaceeda ay tunka kaga wadato midba ay la kacdo shirkadda guryaha ee Maslax Executive Suites waxay bulshada ugu bishaaraynaysaa in xaafadda Backlands ay ugu hayso saddex dabaq oo laba gabagaba yihiin midna bilow yahay guryuhu waxay ka kooban yihiin 4 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha 3 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha 2 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha guryahan waxa ay leeyihiin dhammaanba adeegyada aasaasiga sida masaajidadii madrasooyinkii dugsiyadii quraanka goobihii jimicsiga garoomadii carruurtu ku ciyaari lahayd suuqyadii dukaamaysiga goobihii dabaasha iyo baakinadii gawaarida sidoo kale shirkadda Maslax Executive Suites waxay guri cajiib ah oo 6 dabaq ah ka wada xaafadda isli gaar ahaan Airbase waana guri saaran garoonka ciidanka cirka ee Kenya waana gabagabo gurigan waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha 2 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha doqon calaf male oo dambeeya ma gaaro horay u gaar shirkadda loo bogay bulshadii u riyaaqday Maslax Executive Suites magacaba ka garo waa meel aad loo hanaanshay waana la huba wixii faafayntaasi dheer kala xiriir nambarada shaashada ku xardhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة ديال كسر وهذا برنامج كنا حوارن برنامج كقيبتن هدو يبه ودر أقلاده أنت وسعده وحن كفل قين دون حيسد كتاعن قبل كسناك تاسي أو وجيه بدن له ما أنت وحلقوه وذي مقالة علبو إنه شير هالكاسي وقفر ما بيش ورسنجليه ده قبل كاسي بل سشير كاسي أيها باغذي محو باغذي حيسد هالكاسي كجرته وجيه ده بدن ما هيصل كويسة صاحبك جامعة قلب علينا عيقف فردي سايا نوفل قين دون أنت برنامج وسعود جامعه سودو بل سنة بنا ذينا معلومة صار في هذا الحين باجرتي ده قبلها كسر جيدنا يعني بليه اللي صار في وحي وذين الشرار يبابل SSC يجوني مدوبيان يا سوب حيسي شر إنه قبص ما هذا عربوك الدعاء وافشل من مانتا بسودو حيسد اللي محيط الكويسة بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمدة الصوماليات ميل كستوي شوان بحال سلام الله عليكم إن ديو هرتا قبل كسنة حسد جود بلارن ووشية بدن له ودنعية بدن أي كل جليهين يا كشرت وأنا حسد سياسة دوي إما أها حسد بلشو أما محنك ولا هذا يتوه أنت بدن
la dhihi karo waa dareenka bulshada ayay ka turjumaysaa lama dhihi karo inkasta oo dad badani ay ku doodayaan oo dad badani ay qabaan aragtida ah in bulshada gobolkaasi uu guuxa iyo hugunka yani ay ku doonayaan iyagu aayahooda inay kaga tashadaan kadib sida ay dad badani qabaan markii ay waxba ka waayeen maamuladii darafyada ka deganaa ama maamulada hareeraha ah waa Somaliland iyo Puntland dadka reer Sanaag 7 bilood muddo hadda laga joogo wax laga soo barakiciyay meesha la yiraahdo Sanaag gaar ahaan aan jeeda magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa soo barakiciyay Somaliland oo guryahoodii iyo hantidoodii iyo wixii boqolaal sano ay tabcayeen maxaan ku idhaahdaa ay tabarqo ugu awood sheegto soo dhaafiyay ilaan way sheeganaysa Somaliland gobolka inay iyadu maamusho haddana dadkii ay ku doodaysay inay maamusho waa soo barakicisay sidoo kale Puntland ayaa iyana dhinaca kale sheeganaysay oo ku doodaysay inay qayb ka yihiin maamulka Puntland ayana waxba uma qabanin oo dadkii markii la soo barakiciyay maxaad ahaydeen iyo xagee maaragtaa ka imaateen midna lama dhihin yani labadii maamul bay dhibana u noqdeen kii soo barakiciyay iyo kii kale oo u aamusay oo haba yaraatee aan wax dareen iyo damqasho ah aan u yeelanin maadaama marka يعني دبعتنا نوع أي وجهين جوه حدث سب بنانك وجم صبحين هذا هوش تاجني وحلا قلت المامي كرا مت العدوين كاس إسبير صدي يعني كله قله لكن أي سياسيين هربوا ديان ومحن كل هذا دنا السياسة أيها لقد إحرادين أيها تباشدي بلشدة إيو دبعتدي بلشدة أيها نعكل أنت لورهجي وحيدون أيها الرجال إنه يكون عشان مهم الدواء ماشى واتا هدان في إنك عضون كله سعنات كده عكره يهد واحد كالصعدة قبل كسنة ما لا تبرر إيه كرا وما لا رن كرا رئيسنا وحي قالين حلي أي فدي كعان أو أي وحاول أي واحد سمايستان عدة ربع عدة دون أقدر صدانة مس يعني تباشر جرتي بس هذا أظن جيسو بيدات كفاية سنة يعني إن رنتي مركا لافيريو عبشرة يتبشرة إن دتك وحجلك الرئيسناك معها واحد باللوضي وواحد مدير سوتشي تمي أما بدلان هكا تودان أما Somaliland هكا تودان واي والله بدأ معمول كلا شيء دول كودينا disputed area أما دول لا يسكو هايستو ولا جو مرنسية هاي كدكتي مر هوري أيه هاي إن أيه أنت كجلجشان أو أيه هذا كتشران هذا جد دلدي فوليان هذا جريه هذا نحشو جيان با أيه أي جوان جاران هذا أي عد كبيريان إذا نصير كلا أي جوان كذا جاران لكن dad mar walba la kala jiidanayo oo koox dalay ah oo hoggaan dhaqan iyo hoggaan siyaasadeed ah ay kala jiidanayaan oo kii xagga wax ka soo waayay uu xagga aado kii xagga wax ka soo waayana uu xagga kale aado yay ahaayeen oo dad baa yani ay dadkuba u ahaayeen yani sidii wax iyagu ay leeyihiin oo iyagu aan aayahooda ka hadli karin oo mid waliba marka uu dan leeyahay uu marada tuuro oo tolo ay yiraahdo marka muhiimadda waxay tahay reer Sanaag yani waa bulsho weyn waa bulsho gaan awood waliba qabiilka warsan galay qabiil waxa weeye yani saldanadaha Soomaaliyeed ee la sheegay ee xagga dhaqanka qabiilka la yiraahdo saldanadiisu way ugu facweyn tahay way Soomaali oo dhan marka laga hadlayo ama geeska Afrika yani marka laga hadlayo okay saldanadii noocaas ahayd يعني أهيد سلطنة جونك هجامياشدي لو ذا جرنا يوري على شراء أذو محمد ويله هذا إلا جرادة مركل أي هاين وحول بمركل الله فيه يعني سلطنة دي معناها ميزان كهجامينات لهاي أيام ماشى كبحضة سلطنة دي أيا هوشدي يشقدي هجامين تدي قبطي تساوي حي هرسة دي إن سلادين
kooxa ah oo beelaha ama jifooyinku ay kala leeyihiin oo mid waliba yani isagu hawshiisa uu wato in yani ay maxaan ku idhaahdaa hawshii la wareegaan salaadiintaasina yani intooda badan marka si dhaba loo hadlayo siyaasadii bay ku dhex milmeen oo yani salaadiin maanta hogaankii ama hogaamintii dhaqanka ku eg ma aha taasina hawshii bay sii jaha wareerisay saldanadii guud oo noqotay saldanad iyada naftirkeedu siyaasadda yani ku milan oo maalinba meesha ay ka shidan tahay maxaan ku idhaahdaa ka soo qaxwaysa iyana noqotay wixiiba marka waxay noqotay yani dad hogaankiiba waxay noqdeen dhaqanku dad siyaasadii kala taageera oo siyaasadihii isdiidanaa marka hogaan xuma dhacday hogaan xumo boqolkiiba boqol wax kale oo meesha yaala ma jiraan siyaasiyiintii dan la yidhaahaa ayaa hogaamiyayaasha dhaqanka kala wata shir baa marka ceelbo ka dhex rabay oo loo balansanaa xaggaas la sii aadayay tiknoolooyin baa la arkayay dabcan waxaana soo dhaweeyay 10kii bisha oo ahayd xilligii la rabay in la qabto shirkii SSC lagu soo dhameystirayay iyaguna dawaakaan sheegnay inay SSC iyo iyaga uu wada hadal ay jireen inay isku beerayaan shirkan yaa waday shirkan waxa horta ku dhawaaqay inka la yiraahdo Cabdirashiid Cawl gudoomiyihii hore Cabdirashiid ee baarlamaanka Puntland haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maxaan ku idhaahdaa meel isku casilay ana haynin oo wali wata maxaan ku idhaahdaa xasaaradii xildhibaannimo ninkaas shirkan abaabulay isaga ayaana horboodayay abaabulkaas waxa uu ka shidaal qaadanayay go'aamadii ka soo baxay Muqdisho يعني دولة فدرالك وزارة الرماها جودها أي كشاعسي إن طبعا كبشان وفرمي دونه شركة لجو صور لما يستيري دولة قبلات كأساسي خاتمه طبعا هالكاسو كدابنا وكشد القادنية شركة سي مركبة بروتلان ياو أرنت الدولان يدا لجو سويه هاي إذا ما يصدرت تليها من الشيء بيدا قبل كسنة من أقوم جعاب من الشيء بيوه بيسميه أرت وتكنيكا وضع من الشيء بيوه محق وطن ولا وطن وحالي ما هو حي وطن سيكاويال بيوطن سوقري ما هو مركز وها بهالذي ووينا نكي يعني تليه عيدا من الشيء بيوه أما عنشورها واللي هذا كورنيل عنتنلي نلي هذا ويان وتكنيكا وتبدل ماشى ودرت سو قبل كسو جيداني قبل كسو جيدا waxaa uu tagay ceelbo xaafad la yiraahdo waa bari uu ku habsaday shaqaaqa ka dhacday oo shacabkii magaalada yaa ku kacay xabad bay afka u galiyeen dib baa ka dhacay meeshaas dabcan dhaawacyo iyo kulay dhimasho inay jirto iyana waa maaragtay waa moodahay in dadku ay sheegayaan laakiin kulay dhiig baa ku daatay dhimasho iyo dhaawac yani sida ay kala yihiin maaragtay hadda ma xaqiijin karo laakiin meeshii dhiig baa ku daatay uu maxaan ku ilaahay taliyaha minishiibiyadu geystay waxa dul tagay Cabdirashiid Cawl oo isna oo shirkii wada oo inuu qabtar raba yaa isna tagay meeshii oo horin tiknika ah isna wata shacabkii magaaladu waxay taageero u muujiyeen Cabdirashiid Cawl iyo u muujiyeen oo ay maaragtay dhinaca saareen iyo shirkii odayaasha ee uu isagu ballamiyay Puntland mar kale sii xanaaqday oo nin lagu sheegay abaanduulaha ciidanka Puntland Xuseen Dheere yaa isna meeshii aaday geeyay ciidan kale oo la tagay waxa hadda ku wada sugan magaalada la yiraahdo Ceelbo saddex nin oo ilma adeera oo maxaan ku yahay Xuseen Dheere iyo Citinle iyo Cabdirashiid Cawl oo saddexduba hubaysan shirkii markii uu Xuseen Dheere tagay ciidamo la yiraahdo Maakhir ayaa iyaguna xoojiyay Cabdirashiid waa afar ciidan oo kala maaragtay kala kaan haddana isku xaafad oo kala ujeeda waxay doonayaan iyo waxay diidayaan iyo cidda ay difaacayaan iyo cidda ay u doodayaan haddii la weydiiyo ma fahmi karaan
sababtoo ah wax la isku dilo ama qoryo la isugu qaato meesha ma yaalaan beel baa shiraysa soo ma aha shirka beeshu ma u leedahay xaq inay shirto iyo inayna shirin horta xaq ma u leedahay maxaa loogu diiday marka waxa loogu diidan yahay siyaasad baa meesha ku jirta waxa laga yaabaa inay soo saaraan go'aamo ay Puntland uga baxayaan alidi ku ah go'aamo Puntland ayaa ka soo baxaya meesha rabaan ha ku biiraan dabcan waa waxa laga hor imaanayo yani raggaasi hubaysan ee socda marka aad fiiriso hal qola oo aragti iyo dareen iyagu ay leeyihiin ku socda ma ay jiraan jahawareerkii iyo khalkhalkii guud ee hogaankii dhaqanka ku habsaday yaa siyaasiyiintiina ku habsaday mid walba mid baa soo diraya balaayo kala soo diraysa mid Cabdirashiid yaa wada marka Cabdirashiid kuwan kale wuxuu ku daaban yahay xamar buu ku daaban dabcan أنا هذا ما حقيقي لكن هبدأ سياسة مركز لا فيريو هاوي ماشي كراس بلا دون إياه هذه ريم ماخر أي بولان كسي ترسنادان نكروا سياسي مستقبل السياسة ذات وأهل لا عيو هل كم يريدون وحقيبين دونا كراستا سعيدني مركز مستقبل كيس وحكي حركة مالك لو كده حركة أو إن لحدي كرسي بيش ورسنجل أنا أوجع عنجلين دني وحقوق بدنا وكذا ما وحرها بها تميل هذا يري هذا هالكاس على الجو قيبنا يا بالي هنا مال وسوي حكيه كرو يسوي ده بالها وما قيبنا يو لكن وحقوق بدن يمكن يقولكتنا كيمات وأجندة سياسية مستقبل كلا بدأ كون يلحي يلا باتن كدورة شذا دعي دون تحل بان هذا يعني لا دوران دون فدرال كتجي دونا يا magacaaba iyo awoodooda leh waxa la isku haysto waa waxan la gaarin way oo adduunka in la rogi doono ka sokay aan laga warqabin jamco Cabdirashiid markuu gudoomiyaha Puntland ka ahaa soo mar fagaara ka haday muuqaalkiisa waxaan arkayay uu leeyahay waxaan arkayay dad maakhir leh waxaas waa riyo u laha maanta marka haduu shalay uu laha maakhir dadka wada waa riyo ila maakhir maamul bay u yaqaan u taqaan beesha ma maamul bay magac maamul bay oo ay wateen buha haduu shalay marka magacii maakhir bulshada gobolkan ay wadatay uu yaqaan riyo maanta waxa uu wada taa ka wanaagsan maxay waa boqolkiiba boqol waa dana siyaasadeed markuu shalay saalahaana kursigiibu haystay maantana kursigiibu waayay سؤال جرا إمتشرو سياسي دناها بلشدة إيو مستقبل كذا يا آية هذا يعني أنت كيف فكروا ليه كره بلشدي أد مقعودة كوسو بحضي محا كوحن محاسة كوسن مركي قبل كان ماخر أما بلشدة ريم ماخر كليا وحيبود لا يهين مركا لقارو حل دور شيك تصالة يرو كوبا هذا بدلان لبع عيدا بيجيسي سوكم ليه ما لينيسا وما آمنيسا إن مجالة بوق يقلب كان أنت وكتاجين يا قرك أسرًا إن دي كوداتو إن درها الله وقبت امتحان كسومالي لا امتحان كسومالي لا بالله قبتي أو كدعي أو دهر كدعي أو بران كدعي أو حينقالول كدعي أو لاستوري كدعي يا بوتنا عيدا كدعي جينيس ما دونيسو مجينيس marka ma heshiis bay ku yihiin arinta Puntland iyo Soomaaliya ha say u yihiin waxay heshiis ku yihiin dadkani inay akhriyo adduun baseegaan maxay u taray marka waayay Soomaaliya garan Puntland shalayto markii la keenayay imtixaanka Soomaaliland kama ayna dhiidin markii dadka la soo barakiciyay ee 200 oo kun dad gaaraya salka laga soo galay kama ayna dhiidin كمان أي سهل وحي وجوه الرئي مدحون سعيد عبد الله الدني وكشجنا وحي أهيد إن يجي سومالي الله أي إسكودن يهين أو أي كودا شقينا يعني إسحقلك يجنع سجى يودا معاش كبلشده عير جابنا محن كل هذا توح كجم مجن يسناجنا أي سكشرين سوالك جرا رسميا مركا هرينا وان أو إيه حدنا وان كعلنيا بنتلان سناج وحدنا أكما أيلها لكن وحا أي ربطة مجا باشا إن يعني أي يدو وضعته إن مجا باشا يدو إن وضعته أي كوشة قتبته وصول با يعني كهوس بحضاي تنا أي سكوبيرين
halgankan marka hubaysan ee hadda yani la isaga hor imaanayo ee ceel maxaan ku dhahay lagu wada sugan yahay mid bulsheed ma aha waa mid siyaasadeed wey dani waxa uu rabaa inuu yani magacii bulshadan uu wato oo siyaasi ama askari maxaan ku idhaahdaa isaga danihiisa kaliya ka shaqeynaya oo aan dan bulsho kale ka shaqeynayn oo caruurtiisa uu loo biilo uu kolba soo diro uu yiraahdo orday soo dagaalama oo dadkii ku soo dhex dagaalama wasiir Jamaal baa hadlay oo arintan hadda shirkan hadda baaqday iyo dhaqdhaqaaqan hadda ka socda gobolka Sanaag ku tilmaamay inay tahay fursad wuxuu ku baaqay fursadda in laga faa'iideysto isagoo dhaleecayn u jeediyay Somaliland iyo Puntland labadaba sida halkaas kula muuqda horta Jamaal waa siyaasi daayar waa siyaasi yani maanta marka laga hadlayo gobolkaas siyaasiyiinta ugu muuqa dheer ee ugu macnaha badan yuu koow ka yahay isaga iyo hogaanka Puntland horay isu jeedeen Soomaaliya garaa oo yani loolan adag oo dhinacyo badan leh ya ka soo dhaxeeyay dabcan aragtidiisa marka laga duulayo waa fursad laakiin bulshadan yani qaab laab la kaca oo aan laga tashanin oo aan si weyn looga doodin laguma abaabuli karo masiirkeeda waa anigu sidaan u arko wata reer Sanaag xagay dantooda ku jirtaa yaas dantooda wada reer Sanaag dantoodu meesha ay jirto de kulley waxaan u maleynayaa inaysan garanaynin hadday garanayaan way aadi lahaayeen way garanayaan ma garanayaan hadday garanayaan looma ogola hadday garanayaan siyaasigii yiraahdo wardanteenu halkaasay jirtaana waa lala dagaalamaa waa lala colaytamaa reer Sanaag marka muhiimaddu waxay tahay yani hadda buuxan iyo waxan aynu arkayno waxa weeye waa yani arin siyaasi awey laakiin haddii la doonayo reer Sanaag mustaqbalkooda iyo aayahooda inay ka tashadaan sida ii muuqata wax fudud ma aha wax si fudud lagu gaari karana ma aha sababtoo ah siyaasiyiin ku kala daaban maamulo ee Puntland ciidan bay soo dirtay Somalilandna nin siyaasi waxaan arkayay waxa ka socda Sanaag ishaan ku haynaa toosh weyn yaa noogu daaran ku haya Soomaaliya waligiinba booda ama dhaca Somaliland maxaan ku idhaahdaa u dambeynaysa oo waa soo soconaa leh yani waxaan filayaa siyaasigaas xitaa inuu yahay reer Sanaag inuu yahay dan aad u filayaa muhiimaddu waxay tahay marka reer Sanaag ayaga ayaa laga rabaa mustaqbalkooda in ay ka go'aan gaaraan meesha ay doonaanna ay la aadaan wata jaamac soo koobaynaa dawladda federaalka waa tii warqad soo saartay ay tiri 10ka bisha Julaay la soo dhameystirayaa ama la qabanaya shirkii dhameystirka Khaatumo guddiga dawladda magacawday guddiga ay magacawday iyo waxa moodaa inay isku soo beegmeen shirkan Ceelbo ee baaqday wadee hadda dhaqdhaqaaqa jiray iyo ciidamada la geeyay dadtood u baaqday marka dawladda federaalku door intee leeg ba hadda ku leedahay arinta ka taagan Sanaag dawladda federaalku iyada waxan aabba u ah ha marka ma wanaag ba ka tamise waxba dambe kale ma wanaag ba kama shaqeyso ma dawladda federaalku ha seen uga shaqeynaa waligeed kama shaqeynaa dawladda federaalku habeenna wanaag kama shaqeyn saacadna wanaag kama shaqeyn maya ظروف بالغ شيء يعني وأنا أقول هذا أو بنتلان كحمين تيدا إيو لا دجال بنتلان يمشى أوجلين أو أي هوشن أوضان أو وحول بقى أي سمين يعني كل فايسة إن مركز رئيس السي أي كفاء إذا يستعمل مركز رئيس السي كله والرئيسول يسناج يعين يهيلان يعني هذه كلام رجع بيلها سي هرتو قوي اللي يهدو إن كفاء إذا يستعمل وظروفته هذا مارتي wax walba loogu ogolaanayo ee wax badan ay ku helayaan inay ka faa'iideystaan waa sax laakiin dawladda federaalku habeenna wanaag kama shaqeynin loogama fadhiyo inay ka shaqeynayso waka waatay guddi baa la magacaabay oo shirki qabanaya bal adu guddigaas rajintaada baa waa sax ma ha qabtaan laakiin anigu aragtida noocaas ma qabo aragtida noocaas waxaan arkaynaa ciidamada la geeyay meesha maxaan ku idhaahdaa wufuudii yaa gashay maanta laas caanood
subaxiina waa ka baxayaan berri xageedayaan ceel buhu bay u socdaan hay ama ha loo diido ama ha tagaane ciidamana waa wataan kuwa kalena waa ka horeeyaan danina ciidamuu keenay meeshaas ciidamada isku hardii doona ee halkaa jooga ee wada fadhiyahay waa beesha warsangeli weeye cid kale ma aha waa beesha warsangeli intuba hay Soomaaliya garan waa fiicnaan lahayd inta gacanta isgeliyaan oo dhiig iska daadiyaan oo askaaxda iska dhigaan oo caloolacad ka dhacdo markaa kadib miirku inuu soo dego oo la yiraahdo war maxaan isku dilay maxaan ku dagaalanay maxaan ku diriray ilaa hadda aqli ma jiro laakiin markii dhiig daato oo dhib dhaco ay inta badan Soomaalidu dib yiraahdaan caanadaatayba dabadood la qabay laakiin aniga waxaan dhihi lahaa war waxaasna ka jooga kow maamulka SSC Khaatumo waa in muddo 6 bilooda ama hal sana ah loogu daro ee hadda jooga ee firdhiya uu hogaaminayo dawladda federaalka ana la yiraahdo dib u dhiga aqoonsigiini iyo hawlihiini shirkan dib loo dhigo hawlihiini dib u dhiga Soomaaliya garan annaga soo kala baxayna annaga maxaan ku yiraahdaa go'aan gaadhayna dadka wax dhisanaya ee la doonayo eeg warsangeli iyo dhulbahante bulsho walaala way isku khasban yihiin laba siyaalood buu isku qasban yihiin mar waa isku duruuf oo waa isku maxaan ku yiraahdaa wax walba oo cadawga warsangeli waa cadawga dhulbahantana waa cadawga warsangeli mar territory mustacmarkii ama isticmaarkii Ingiriiska yay ku wada jiraan oo Somaliland wixii la dhihi jiray bay qayb ka yihiin Soomaaliya garan marna waa bulsho markii deegaanka iyo laga yimaado duruufahaas kale wada dhalatay oo isku mid ah aadiya Soomaaliya garan ayaga ha soo wada hadlaan warsangeli iskii ha u wada hadlo iyo labo ha qaato dhexdiisa iyagu dantooda iyo arrimahooda ha falanqeeyaan ha ka doodaan isimada iyo hoggaanka siyaasaddu bulshada inta la isu keenay in la yiraahdo war go'aan gaadha dadka Somaliland male Puntland male waa laba beelood Somaliland iyo Puntland oo yaani beel kala isku haysta ama beel kale doonaya inay tunka kuwa mid walba dhinaceeda ay tunka kaga wadato midba ay la kacdo limba arkay soo qoray qoraalkiisa magaciisii wuxuu dawladdu waxay meesha ka wada waa Raaskambooni 2 Soomaaliland garan ma aha waa u imaan midaas muhiimadu waxay tahay in kuwan iyagu soo shiraan go'aankooda iyaga gaaraan meesha u bataan ee boqolkiiba 51 ay isu ku raacdo oo iyadoo si dadnimo iyo wax walba leh codka loo boganayo meesha codku u dhaco in la isku waafaqo laguna faataxaysto kuwan dhulbahantana iyagana sidoo kale kadib iyagu isu yimaadaan ay asaaska u dhigaan wax ay wada leeyihiin سان هذا معقول ما هو ورسنجلي أنت يا عيني دهان وحن كبير ري أما أتقن لأنه وحي سيسا ما يستوي وحول بوتها مركب محن وحي الوجسية أنا مركب كوك أنا عضين لو أنا يسا ما تا أنا مرة وحربا وحل وذا ليه هي ولا وذا ريستو ولا وذا أنكو oo hadii loo baahdo xilalka la qaybsado oo hadii loo baahdo lagu heshiiyo santuuqa nin waliba ha ku qanco madaxweynaha waa la dooranayaa xildhibaanka waa la dooranayaa hoggaan yani wax walba waa la dooranayaa hadii la yiraahdo qaab beeleed aynu ku qaybsano madaxweynaha yaale madaxweyne ku xigeenka yaale gudoomiyaha baarlamaanka yaale wasiirada soo loo kala qaadanaya yani agaasimayaasha taliyayaasha ciidan yani awood qaybsi beelad hadii lagu fadhiisinayo iyo hadii la leeyahay aan waxaas ka gudubno oo santuuq aynu ku tartano oo kolba cidii inoo guuleysataahi ha ina xukunto yani dadka xukunka doonaya na ay bulshada kasbadaan oo ay bulshada ula tagaan waxa ay qabanayaan iyo aqoontooda iyo khibradooda wakaasa marka muhiimada yani waxaan dhihi lahaa labada bulsho iyagu ha tashadaan laakiin waxaan olologta iyo qababacda Puntland xabad kiniini kagama maqna sanaag
macna wax qodob ka wada ha hay intaasoo sano oo ay Puntland dhisan tahay Puntland waxba kuma sheegan karto gobolka Sanaag haba yaraatay suuliima matalaya Soomaaliya laakiin mas'uulka matalaya haahe mas'uulka matalaya waa eed ama dhaliil uu leeyahay laakiin mashaariicdu xagee ka timaada mashaariicda xagee laga keena wadadii ceel daahir waan filaya 15 sano ka hor arday kasta qof kasta oo reer Puntland lacag baa laga qaada qof kasta oo reer Puntland ilmo kasta oo dhigta iskuulaadka Puntland $10 baa laga qaada oo wadada ceel daahir looga qaada hay ku dambeysay meel ay waa ceel daahir tu ceer gaab ay ahayd Soomaaliland garan maalinka xogaa siyaasadu jirto baa xaggan la aadaa Somaliland sidoo kale dadkani marka awal hore nabad bay ku nool tan kale ee aad tiri yani dad waxay yiraahdeen waa Raas Kamboni ma aha oo waxayna u ahayn Raas Kamboni wan inda cadays baa lagu socday tarna Soomaaliland garan oo cid maxaan ku idhaahdaa to qaable ama beelo taageero ay ka helayso dawladda federaalka ama jirin cid maxaan ku idhaa budhiga u sii ahayd ma ayna jirin Soomaaliland garan yani diyaarado baa dad la soo saaray yaa la keenay siyaasiyiin qorshayaal leh oo ajenda leh oo kuraastooda dhacsanaya sida kuwa hadda Sanaag oo kale ma ayna jirin Sanaag waxa way ciidamo hubaysan baa jooga عيد حبت كوري كارت هرمعت بلقي سلام لها عيد حبت كوري وحكسو كهرية كوي محاكو ماخر يو محاكو هذا عبد الرشيد يو كوي يو بدن أو كله يا كهر لمانا أنت هرمعت كاسي لمانين ها وضد الدفاعي حيستان كواني سواء الجرن ومرك حقيقة لقى هذا مرك اسمه مردوا تام وحاول مال دجال بحيستان واحد لقوا قبضوا يا ترى تبى شدي برشة لقى فايدة